maanta wajigii labaad ee waxaan u joognaa ardaydii Soomaaliland ee scholarship-ka ahayd aan soo celinay safaaradda ahaan waxaan ka qayb qaadanay ardayga inaanu xogtiisa marka hore helno xogta markaan ururnay jaamacad kasta intay naga joogtay waxaan annagii teamkaygu kharashkii ugu horeeyo safiir ku-xigeenka ilaahay kharasiye mudana barkhad anigoo ataajeegii ay safaaraddu soo dirtay inaan xaggan ku qaabilo qaybtii labaad baan maanta isdhaafinaynaa oo 85 baaritaan baan samaynay wacyigelin baan samaynay haddana waxaan doonaynaa inaan gawadhidii saarno aad iyo aad baan safaarad ahaan ilaa maanta hawshan timo uga shaqaynaynay hawshan inay sidii ugu fiicneed guddiga halkan aan ugu nimino guddi dhisan oo runtii nala qayb qaadatay ardayda nala dareemay duruufaheedii u sii diyaariyay basas si wadankii ugu tageen sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta magaalada ganacsiga Wajaale ardayda scholarship-ka Itoobiya ugu maqnayd ee xaaladda wadanka ama heer adduunyada ka dhacday ay soo celisay ee maanta dalkoodii ku soo guriyo noqday waan soo dhaweynaynaa waxaan fariin ahaan kullay waa niman dhalinyaro oo waqtiga la socda adduunyadu waa wada digital in walba jeebku ku sitaa digitalkiisii sidaa darteed waxa fuano iyo tusaale iyo example idinku filan macluumaadka ku duuban mobilka iyo TV-yada wararka ka baxaya heer caalami iyo heer qaranba waxaan leenahay ha loo dhaga nuglaado halal waxna akhriska iyo TV-yada iyo macluumaadka waanooyinka ha laga dhageysto halal la raaco taas waa ilaahay baa haya nolosha iyo dhimashada ilaahay baa haya xanuunkan waa xanuun ka hortag leh waxa loo baahan yahay inaynu foojignaan fara badan oo shakhsi iyo qoys iyo dalba aynu yeelano sida loo wada taagan yahay inaad aad ugu foojignaantaan naftiina ardaydii Soomaaliland wajigii labaad oo saaka halkan aan ku sii sabootiyano oo Soomaaliland u gudbaya haddaanu maamulkii wajaalanahay iyo hay'adihii nabadgelyaduba heegan ayay u yihiin hadda halkan waxaan ku sii sabootay ardayda fariinta caafimaadka aan u dirayna waxa weeye qofka marka koobaad waa rag aqoon-yahana markay gurigoogii ay tagaan nin walba uu 12 cisho waxa weeye qolkiisa ku jiro isbaxnaaniya la doonaya kana badbaadiyay qoysaskooda fariinta caafimaadka ee mobilka ku duubana nin walba inuu dhageysto iyo awaamiirta ka soo baxaysa qolada bahda caafimaadka